السلام عليكم ورحمة الله. barnaamijka maanta ayaa waxaan ku soo qaadan macluumaad kooban aan soo aruuriyay. hal lagu daray hal waa labo, laakiin mararka qaarkood ayaysan xisaabtaasi shaqayn. shay hal litir ah haddii aad litir kale ku dartid, 2 litir ayay isku noqdaan sida dabiiciga ah. laakiin maadooyinka qaarkood ayaan sidaas u shaqayn, sida markii la isku daro biyaha iyo noocyo ka mid ah alkoolada, sida alkoolada loo yaqaan rubbing alcohol oo bakteeriyada iyo jaraasiimta lagula dagaalamo. haddii litir ka mid ah alkooladaas lagu daro litir kale oo biyo ah, isku darkoodaas 2 litir ma noqonayaan, ee waxay noqonayaan wax ka yar 2 litir. sababta ayaa ah in molekiyulada ay biyaha iyo alkooladu ka samaysnaayeen ay isdhex galaan oo ay isku aruuraan. arrintaas oo yaraysa mugooda ama volume-ka ama xajmigooda waa waxa keenaya in meeshii 2 litir laga filanayay ay ka yaraadaan oo ay ka naaqusaan 2 litir. qolofta diinka iyo qubadu waxa ay ka caawisaa xayawaanka oo ay ka ilaalisaa in noolayaasha kale ugaarsadaan. waxayna ka samaysan tahay maado borotiin ah oo la dhaho keratin, waana maadada ay ka samaysan yihiin cidiyaha iyo timaha bini'aadamka. laakiin sida ay sameeyaan noolayaasha qaybtood, awood uma leh diinku inuu qoloftiisa ka dhex baxo oo lafihiisa ayaa ku dhagan, waana qayb ka mid ah jirkiisa. taas macnaheedu waxa weeye in marka uu diinku koro oo uu weynaado, ay qoloftiisuna la korto. diinku waxa uu awood u leeyahay inuu madaxiisa hoos geliyo, laakiin qubadu awood uma leh inay sidaasi samayso oo mar walba madaxeedu bannaanka ayuu u baxsan yahay. dagaalkii labaad ee adduunka ayaa ciidamada Mareykanku waxa ay rabeen inay ogaadaan qaabka ugu fiican ee ay diyaaradahooda dagaalka uga badbaadin lahaayeen in la soo rido. markaas ciidamada Mareykanku waxa ay tira koobeen diyaaradahoodii hawlgallada sameynayay iyo meelaha ay xabaduhu kaga dhaceen. saynisyahanno u shaqaynayay ciidamada Mareykanka ayaa markaa waxa ay soo jeediyeen in meelaha xabadaha ugu badan kaga dhaceen la xoojiyo oo biro difaac ah la saaro. laakiin professor xisaabta dhiga oo magaciisa la dhihi jiray Abraham Wald ayaa talo ka duwan midaas ciidamadii u soo jeediyay. waxa uu kula taliyay in meelaha aysan xabaduhu ka muuqan la xoojiyo oo difaac dheeraad ah la saaro. waxa dhici karta in lala yaabo waa maxay sababta ninkan professorka ah uu u leeyahay meelaha aysan xabadu ka muuqan difaac bir ah la saaro oo la xoojiyo. waxa uu ku jawaabay, diyaaradaha la tira koobay oo meelaha ay xabaduhu uga dhaceen la fiiriyay waa kuwii hawlgallada ka soo laabtay. taas macnaheedu waxa weeye tira koobka kuma jiraan diyaaradihii la soo riday. marka diyaaradaha soo laabtay waxa ay xabaduhu kaga dhaceen meelo ay diyaaraddu u adkaysan karto oo aan khatar weyn diyaaradda ku keenayn. laakiin diyaaradaha la soo riday waxa khasaaruhu ka gaaray meelo xasaasi ah. sidaas darteed ayuu xisaabyahankan waxa uu kula taliyay ciidamadii Mareykanka in diyaaradaha meelaha xabadu kaga yaalaan maahe meelaha kale la xoojiyo, maadaama ay u badan tahay in diyaaradihii aan badbaadin ee la soo riday ay meelahaasi khasaaro ka gaartay. tusaale midkan la mid ah oo xisaabyaqaan kale uu xaliyay ayaa waxa ahayd in markii militariga Mareykanku ay u qaybiyeen ciidamadoodii dagaalkii labaad ee adduunka koofiyado bir ah oo madaxa xabadda ka ilaalisa, ayaa waxa la arkay in ciidamada madaxa ka dhaawacmayay ay bateen oo ay cisbitaalada buuxiyeen. haddaba saraakiishii ayaa waxay dalbatay in la bedelo naqshadda kullada ama koofiyada birta ah maadaama ay bateen ciidamada dhaawacu soo gaarayay. laakiin nin yaqaanay xisaabta statisticska ayaa waxa uu u cadeeyay saraakiishii in sidii loogu talagalay ay u shaqaynayso koofiyadaas oo ay askar badan badbaadisay, oo haddii aysan koofiyadaas xirnaan lahayn ay dhiman lahaayeen, taa beddelkeedana ay dhaawacmeen. waana waxa keenay in askarta madaxa ka dhaawacantay ay bataan, oo haddii aysan koofiyadaas xirnaan lahayn ay macquul ahaan lahayd inay u dhintaan xabadihii madaxa kaga dhacayay. sheekadan soo socota ayaa iyaduna xisaab ah oo waxa ay caan ka noqotay YouTube-ka, oo waa macallin ogaaday ardadiisu inay wax qisheen isagoo aan loo sheegin. inta badan markii imtixaanada la saxo ayaa si daatada loo arko waxa loo bedelaa garaaf sida kan oo kala ah oo cadeynaya inta arday iyo natiijada ay keeneen. sida caadiga ahna sidaas ayuu u ekaadaa garaafku oo dhexda ayaa loo badan yahay. markii dhinacyada la aadana waa yaraadaan ardada darajooyinka aadka u sarreeya keena ama ardada keena darajooyinka aadka u hooseeya. laakiin mararka qaarkood daatada ayaa waxa laga garan karaa waxyaalo kale hadday dhaceen. tusaale ahaan garaafkan waa natiijada imtixaanka secondary-ga ee laga qaaday ardada waddanka Poland. hoos waa natiijada ay ardadu keeneen, geeskana waa boqolkiiba intee arday ayaa natiijadaas keenay. imtixaankan si ardaygu u baaso waa inuu 30 keenaa, laakiin bal waxa fiirisaa 26 ilaa 29 arday badan maysan keenin, laakiin 30 ayaa hal mar kor u booday.
halkaas waxaa laga calaamadsan karaa in macallimiinta wax saxayay ardaygu markuu 30 u soo dhawaado ay baasinayeen oo ay 30 gaarsiinayeen. marka marar badan haddii natiijooyinka garaafkan oo kale loo bedelo waxaa soo baxaya waxyaalo awal qarsoona. haddaba macallinkaas jaamacadda wax ka dhigayay ayaa natiijada imtixaankii uu ardada ka qaaday markuu garaafkii arkay waxa u soo baxday in qish baahsan ay ardadu sameeyeen. markuu dabagalayna waxa uu soo ogaaday in waraaqihii imtixaanka uu ka soo diyaariyay la koobi garaystay oo arday badan ay heleen su'aalihii lagu imtixaami lahaa ka hor imtixaanka. daanyarada caalamka ayaa 10 nooc kala baxa. nooca ugu yar ayaa waxaa loo yaqaanaa Pygmy marmoset. waxa ay la egyihiin farta dadka. daanyaradan ayaa waxa ay ku nool yihiin koonfurta Ameerika iyo keymaha Amazonta. waa nooc ka mid ah daanyarada cajiibka ah ee ku nool Latin America, halkaas oo ay ku nool yihiin noocyo fara badan sida daanyarkan shaarbaha leh ee loo yaqaan tamarins, iyadoo ay jiraan noocyo kale oo fara badan oo keymahaas ku dhex nool. intaas ayaan ugu jooga barnaamijkeeni maanta intii aan mardamo kulmi doona. nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaah.